dhowrkii bilood aynu ka soo gudubnay waxa ka socday magaalada Burco mashaariic horumarineed taasoo ka socotay dhowr goobood oo ku yaala magaalada Burco. haddaba waxaa jira macluumaad hor leh oo laga helay xukuumadda Somaliland oo tilmaamaya in la joojiyo dhismaha xarumaha ganacsiga ee dhismahoodu ka socday goobta loo yaqaano guryaha booliska magaalada. ila kala duwan oo la xiriiray ayaa xaqiijiyay xayiraadda mashruucaasi ay waday wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Somaliland. xildhibaanada golaha deegaanka Burco ayaa hore ugu kala qaybsamay xaq u lahaanshaha dhisidda dhismahaasi ee wasaaradda hawlaha guud iyo dawladda hoose ee Burco. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco ayaan wax ka weydiinay xayiraadda la saaray mashruuca dhismihiisu ka socday guryaha booliska magaalada Burco. arinta anigu markii hore wadada ka qeylinayno waxaan sifa sharci la maro imikana waxaan maalayna sharciga la maro madaxweynaha hore iyo madaxweynaha dambe joogtooda waa ku hambalyeynaa wuxuu maalayna dad codsano madaxweynaha suuqeen baan u baahnay suuq halka laga dhigo dadkuna maal gashadaan dawladda hoosana kirayso wasiir cali marxaan baa ka duway soo fargeliyo ka duway isaga hakra ku takrifalay degmadii iyo gobolkiiba talada waxba uu ka siin waayay hawlaha guudna dhulka dawladda oo dhayaga maamula laakiin wasaarad baan u sii kala leenahay وحشيس أو دولة خاصة كشيء ما شرته أنا كوشة دوينا جوجين تاوه حاولنا لا هلا بار أو شرعة هلا مريو كل ده بقول عسى ما تديني لكن ما في شرعة هلا مريو ما دحوينه صو قريبا حاولنا ما حد ما أنت كلا ده هيجوان كصوب حي اللي هو حيرق ريان ارتأت بو مهتسنتين يونيفرسال تي في وحنا حقيقة هذه قرر ديسان إذا كنت تقولوا هذه جياد ياد بندكم مهنقيا هلك وحنا قام مهنقيا هرتم الحوينا عصب وسبيه عبدي هذا قريها كاجو ورمه waanu soo dhaweynaynaa xayiraadda la xayiray hanti umadu leedahay oo si sharci darro loo boobayay ahayd guriyuhu waa guriyihii askarta saldhigga boolisku ay lahayd muddo dad baa ku jiray waxaanu damacnay inaanu hadda badankay bacdayaashaas oo wadadii degan aanu uga sameeyno suuq mool ah markaanu adigu arrinkaa gudagalay madaxweynuhuna nagu soo wareejiyay hawshoodina aanu wadno wasaaradda hawlaha guudkada lagaga soo dhacday mool baanu idinka dhisaynaa baana la yidhi sidaan moolkii u sugaynay ayaa waxaanu aragnay meeshii 4 mitir loo googooyay oo bilaasuuliya oo la iibinayo oo aan mulkiyadna la weydiin waana hanti umadeed beedankada hantida ummadda ee labada gacmood dhexdooda ka dusaysay xilliga kala guurka in la qabto waa xayiran saasaana waxa yirnaanayaan waana hanti umadeed gacan dawladeedna lacagtaas kuma dhicin cidii laga qaadayna waxa la leeyahay cidii ka qaatay u doonta waxa iyaduna la mid oo rabnaa hanti dhowrka guud inuu joojiyo eegas halkii la oran jiray xiriirigta ama xoolaha lagu qali jiray gowraca oo iyadana sidaas la dhisay sharci darro laga dhisayo sifa lagu bixiyay sharci lagu bixiyay midna aan hayn waxaanay tani noqonaysaa mid si weyn ay bulshada Soomaaliland isu weydiinayso gaar ahaan gobolka Togdheer. Ali Daar Maxamed Boos TV-ga caalamiga Universal Burco.